injineernimada ma dalka gudihiisa ayaad waxbarashada kusoo dhamaystirtay mise dalka dibadiisa waa su'aal meesha taalla cabdi nuur waxaan taa ahayd nama hore weydiisaa anigu waxaan wax kusoo bartay Soomaaliya waxaan injineernimadeeda kusoo qaatay waddanka Soomaaliya kadibna waxaan imid aan takhasus ku sameeyay waddanka Talyaaniga basekayga markii ugu hore wuxuu ahaa civil engineering markaan waddanka Talyaaniga imidna waxaan sameeyay irrigation engineering kadibna waddankii baan dib ugu noqday waddankii waa ka shaqayn jiray qaybta la yiraahdo land and water ama irrigation department-gan joogay ilaa aan ka gaaro heer ah project leader Shabeelle water management waxbarashadii halkaa kagama sii harin dib baan waddanka Talyaaniga ugu soo noqday waxaan ku sameeyay construction management waxaan kaloo sameeyay computer engineering maalinka maanta aan kula hadlayana waxaan ahay master of business MBA master of business administration waata engineer maxamed waxaad iga warantaa waxaanu joognaa magaalada Columbus carweynaha dalka Mareykanka waliba Columbus waxaa lagu tiriyaa meelaha dadka Soomaalida sida magaaladii labaad ay sida baanay dadweynaha Soomaalida ku badan yihiin bal maxaad isleedahay shacabka ayagu maanta ku daawanaya waqtigan TV-gan iyo hoy.com aad u soo jeedin lahayd iyadoo maanta doorashadii dalka ka dhacdayna dadka badankood aad iyo aad u taageersan yihiin iyo caalamka dunida inteedii kale oo dhan bal adiga maxaad u soo jeedin lahayd dadweynaha ay ku dhaqan reer Columbus iyo dunida dacladeeda oo dhan waa mahadsantahay Soomaaliya waxaan u malaynayaa muddo ka badan 18 sanadood ayay ku jirtay caqabad iyo dhibaato nin walbana waa ka dharagsan yahay waxa keenay iyo waxa ka saari kara haddaynu nahay inta qurbo joogta ah ama ha noqdaan kuwa Columbus jooga ama dunida inteeda kaleento waxaanu markhaati ka nahay oo arrinta ah Soomaaliya maanta ka taagan inaysan innaba ha yaraatee cidna faa'iido ugu jirin ama ha noqdaan kuwa gudaha ku jira ama kuwa dibadda jooga waxaa cid walba oo Soomaaliya ama gudaha joogaan ama dibadda ha joogaan waxaan oran lahaa haddii ay xil iska saaraan ilaa qof walba gurigiisa isaga mas'uulka ah marka gurigiisa uu soo hagaajiyo ayuu cidda kale wax tari karaa marka waxaan aaminsanahay shakhsi walba oo nadiif ah marka isagu laftirkiisu isxilqaamo una istaago danaha dadka ay dalka waxaan aaminsanahay inay Soomaaliya hagaagayso marka waxaan kula talin lahaa cid walba ama dibadda ha joogto ama gudaha ku jiraan inay u istaagaan danaha iyo danta dalka iyo dadka waa tahay aan ku xigsi engineer maxaad kale u soo jeedin lahayd dawladda ku meel gaarka oo tala ahaan aad u haysaado inaad u soo jeediso waxa la yiri haddii nin saaxiibka tala ka maqan tahay waa rumayna Soomaaliya maamahdeedu nin saaxiibka waa tala ku hayo inkastoo aan maamada sida ugu fiicnayn maanta dawlad baa ka dhalatay muctarif ah oo la aqoonsan yahay wadajir baan waxaanu ku dooranay madaxweyne waxaan aaminsanahay maanta maalin ay kaga fiican tahay Soomaaliya inaysan jirin waxaan soo jeedinayaa cidda xilka loo magacaabay iyo cidda la shaqeynayso inay wax ku raadiyaan ama xalka Soomaaliya ay ku raadiyaan inay wada hadal ku dhameeyaan inaan wiil Soomaaliyeed mar dambe uusan ku dhiman xabad inaan wiil Soomaaliyeed ama reer Soomaaliyeed mar dambe aysan u qixin dhibaato maanta Soomaaliya dhibkii maanta soo gaaray waa ku filan yahay qixitaankii soo gaaray waa ku filan yahay intii dhibatayna hadee janna Allah naga ilaahay naga sabarsiiyo baan leeyahay laakiin waxaan leeyahay tan maanta wixii ka dambeeya yaysan noqonin inuu wiil Soomaaliyeed nooga dhinto inagoo heli karna xal ah inaanu miisoo wada fariisano oo aanu hadalno oo aynu ka hadalno xaqiiqda danteena maxaa inoo dan ah haddaynu nahay Soomaali marka anigu waxaan kula talinayaa aan ku guwaabinayaa qolyaha iyagu maanta xilka qaaday inay oran doonaan maxaa inoo dan ah ciddii danaynaysa Soomaaliya inay yiraahdaan welcome soo fariisa miiskaan uga hadalnay واتاي waxaanu jecelahay inaanu waraysigayga aanu maanta aan la yeelanay engineer Maxamuud Saalax oo kamid ah aqoonyahanada magaalada Columbus oo maanta kula kulannay studio-yada iyo hoy.com ayaan waraysigayga waxaanu ku soo koobaynaa inta waqti kale aan iska arki doono hadii ay bakaraan waxaan kaga tageynaa sida iyo kula wanaagsan iyo daawasho wanaagsan